muddadaas kooban gudaheeda ayuu wuxuu shaybaarka ku tilaabsaday baaritaano badan iyo horumar badan inuu ka sameeyo oo bukaanada u adeego qaybta abuurka kale waxaa abuurnay muddadii yareed uu furnaay 450 abuur oo ku ogaanaynay in bukaanka bacteria uu qabo ay tahay Mycobacterium tuberculosis ama TB-da qaaxada bacteria germs ka sababo sidoo kale waxaa sameeynay 160 baaritaan oo ku kala ogaanaynay bacteria-da qofka midda uu dawada uu jirkiisa la qabsatay iyo midda uu ku daweysmaayo midda ay tahay anaga oo ka qaadayna qofka xaakad centerkani waa shaybaarka qaranka abuurka TB-shada waxaa dib loo howlgeliyay ugu dambeyntii 2019 muddo hal sano ah ayuu wuxuu u shaqeynayaa si oo dhameystiran shaybaarkani wuxuu ku guuleystay in baahidii loo qabay in saambaladii waagi hore waxaa loo diri jiray dalalka Kenya iyo Uganda laakiin markii la qalabay kadib waxaa lagu guuleystay in saambaladii beeshinka laga soo qaada in halkan lagu sameeyo waa markii ugu horeysay burburkii kadib oo halkaani lagu sameynayo abuur in lagu sameeyo oo bacteria la abuuro oo dib loo howlgeliyo shaybaarkii qaranka abuurka TB-shada